أطول أجن هودري جلاء عن برتمين سكاشميدي أكتر كسر مقضي أفلام أي سومالي دقائر أدو حيسي سدا وشدودا جلاء وسيدو وياه ميجا ستار سلماقان هذا هو حين وذاك دونا حقي حقيقين وقارا جلاءان بس أنت نقول قل مقال كي وعن كعسنا أنا جنال قصبيرتو مقال كدات كيش لا جنو صار شير جري ولا وذاك أصحاب هذا سونا دبادة صاحب يا أطول أجن هودري سومالي دقائر حقيقي قانا بناش وكنتني أفرجر لشيء سديد دي جولاي سنة دي كون سقال بقول تضواتنكي جلاغان waxa uu ku dhashay magaalada Delhi markaan eegno jilaagan fanka Hindi waxa uu ku soo biiray isagoo 12 jir ah wuxuuna ka soo muuqday film lagu magacaabo Basandi Abna Abna filimkaas waxa uu gaamiyalka wada ahaa Mithun Chakraborty iyo sidoo kale jilaagan aydiis gabar lagu magacaabo Rati Agnodri jilaagan 11 sano ama 10 sano kadib waxa uu asigoo actor weyn ah ka soo muuqday filmka lagu magacaabo Sir kaas oo hogaamiye uu ka yahay Nasruddin Shah ama Jilo waxa uu taqaanaba filimkaas Sir waxa uu soo baxay sanadii 1993 atul sanad kadib filimkiisa Sir waxa uu guursaday Salma Khan walaashiis ka yar gabadha lagu magacaabo Alvera Khan iyadoo u dhashay laba caruur ah waxa xusid mudan jilaaga markuu fanka ku fashilmay inuu caawiyay Sidigiis Salma Khan wuxuuna ka caawiyay inuu noqdo director iyo sidoo kale soo saare jilaagan waxa uu ka soo muuqdo aflaam caan ah oo Soomaalidu qaar aad u xiiseeyaan daawashadooda markaan eegno aflaamta uu ka soo muuqdo kuwooda ugu caansan waxa lagu xusi karaa Kantifir iyo Shwanti Hote Bear Hogaya Atish iyo sidoo kale filimka caanka ah Hamtum Haare Sanam markaan eegno jilaagan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa xaqiiqada ugu horeysa jilaagan fanka inuu ku soo biiro waxa ku dhiirigelisay aayadiis Rati Agnodri waxaana xusid mudan in labadooda ay qayb ka wada ahaayeen filimka lagu magacaabo Basanda Abna Abna waana filimkii uu ka soo muuqdo asigoo 12 jir ah xaqiiqada labaad jilaagan markuu fanka ku fashilmay waxa caawiyay Sidigiis Salma Khan maadaama uu ku caawiyay ama uu ka caawiyay aan saaxiib yeel inuu director noqdo waxaana xusid mudan filimkiisii ugu horeeyay jilaagan uu director ka noqdo waxa hogaamiye ka noqday jilaaga caanka ah Salma Khan filimkaas waxa lagu magacaabaa Dilne Jise Apna Kaha waxa uu soo baxay sanadii 2004 inkastoo filimkaasi natiijo aan uu guul dareysay haddana waxa xusid mudan in jilaagan Atul Agnodri uu soo saara ka ah filimka caanka ah ee Bodyguard kaas oo Salma Khan hogaamiye ka ah waana mid ka mid ah aflaamta guulaha weyn gaaray kaas oo soo saara ka noqday jilaagan wali fanka Hindi ayuu ka tirsan yahay shaqadiisuna waa director iyo sidoo kale producer ama soo saare hadaba intaas ayaan soo gabagabaya saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay jilaaga caanka ah ee Atul Agnodri Soomaalidu qaar abinash ay u yaqaanaan fadlan hadii aad ka hesho muuqaalka laag noo saar si share gareeyo wala wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena